cabdirashiid axmed maxamed oo ah wiil dhallinyaro ah oo degan xaafadda lixaad ee maamulka magaalada Jigjiga iyo isagoo xaafadooda u soo hooyanaya koox dhallinyaro ah oo tooriye iyo baangada ku weerareen dhowr meeloodna dhaawacyo ka soo gaarsiiyeen waana kan isagoo oo ka warbixinaya sida ay wax u soo gaadheen. magacaygu waa cabdirashiid axmed maxamed xalay hore waxay qisada ku dhacday inta badan aniga wiilasha asxaabtana waxaan ahayn dad inta badan isdhaweeya oo xagga adhawayga qumaadaha la gaarsiin jiray balse xalay toole hawlo yar iyo ana xaafadda iskaga sii socday ayaa ku dhahay bajaaj baan qabsanayay iskaga ka hadho waxaad dhimalana ay hooyin kare xilliga wiilku iga laabtay iyo xilliga iyagu imanayaan kama soo wareegin muddo 2 daqiiqo kama soo wareegin waxa dhacday bajaaj anoo bajaaj soo daba socotay ka yar sugayo bajaaj u soo loodaya baatoodii xagga hore iga soo qabsatay tii hore markii xagga soo qabsatay qabo bay markii soo isu tagteen xaaladahan inuu istaagay oo waxaan islahaa maadaama xaafadii ay tahay mid ka mid ah duujidiisa aqoonsan ama askarnaysan oo istiinaysan balse waxa ahayd markii sal ay soo istaageen isoo midna ilaa qarrada khamrada ayaa madaxa liiga jabiyay qarrada markii madaxa liiga jabiyay inta madaxa ishay iyaga ku mashquulsanaaba waxaan maqlay qof ku hadaaqaya ama ku hadlaya eray ah wargeli mindida geli war mindida markaasan inta xogaantan yar baraar iska baaray kii mindida igu soo waday markii koob mindida intaan u baneeyay ayaa markii labaad gacantan isku dhigay gacanta dhinaca koriga dooxay kadib mindidii markuu iga saaray waxaas tahay xaajada ku dhow waa wax iska jira ee telefoonka baahin telefoonka siibaas ah telefoonkii baan jeebka uga saaray waxaan dhahay war ma telefoonka baahintan hooyo telefoonka iyaga qaaday ayaa hadana mid kale xagga dambe ka maqlay ayaa lahaa war doontiga geli mindida war doontiga geli ciidan baa soo socday markaa ciidan baa noo soo dhawaa ciidankii markaan maqleen arkay ciidan inay soo socdaan xagga nooga soo cararayaan baa waxaan sameeyay kii mindida igu soo ganay ayaa intaan dib iskaga tuuray dhinacayga horeedeeda ayaa sidii xaggaaga hore ka baxso kii aan hore iskaga tuuray ayaa mindidii sida igu soo ganay oo dhinta halka qalka hoosteeda ayuu iga saray xaaladeydu markii ay ciidanku ay halkaas ka soo cararayeen anigu ciidankii baan daba maray anigu markaa miir dhiig badan iga baxay oo miir badan igu jirin halkii baan anigu aan xaafadda ku galay kadib xaafadda markaan galay wiilkii aan saaxiibkahayn birxinaha ayaa xaaladda isagii walaalkii ay soo daba mareen mid ka mid ah wajiyada aqoonsaday ma jiro balse waxaan dareemayaa 3 wiil imka la keenay mid kale oo yar itaalahan aniga ka ayuu ahaa kii mindida markii hore igu soo ganay macnaha aniga xagga hore arkay eegasal sheegay 3 qof baa lahayaa balse wiilka dhiman weeyaan kii mindida aniga igu soo ganay mindida markii hore gacantayga dooxay ka madaxa qarrada iga jabiyana waa kii hadda ugu dambeeyay boolis ku jira anoo wareersan oo gagabsan jaakeedkiisan ka xasuustaa anoo gagabsan oo wareersan ayaa intii la geeyay qabalayga sarasdisto waraaqad laga soo qoray waa la geeyay dhakhtarkan kan sarasdisto yaala ayaa la geeyay dhakhtarka waxba kama qaban karnay rifalaalki geeyay anoo dhinaca rifalaalka u soo socona ayaa aragnay soo wada dhexdhexaad oo wadada dhex socda kadib waxaan isdhaanay daadiyada halkan kaga carartaan way ka baxsan gaarigii aan aar ku kala qabsanay gaarigii markaas sida ku gashanay habanaan geenay dhakhtarkii markaas la geeyay waxaan ka sii dhaxeeyay jiray dadka waxaan naga sii dhaxeeyay jiray أنا حنا ويل سوشيال ميديا استعماله يعني واحد عدوى أما واحد ضد أن علاقة ينقد حيسو أما واحد ما نجيستها برتم جرت. dhinaca kale wiilka dhibaatada soo gaadhay aabihii iyo dhalinyaradii kale ee saaxiibada ahayd ee u soo gurmaday ayaa iyaguna ka warbixinaya dhacdada halka uu wiilka dhibaatada soo gaadhay aabihiina uu booliska uga mahad celiyay gurmadka degdega ah ay wiilkiisa ku badbaadiyeen. magacayga waxa la dhahaa Xamse Axmed Saciid haddaan ka warbixin dhacday xalay dhacday anoo guri ku jira ayuu wiilkan oo lalayo diigay soo galay ani walaalkii baan hayno walaalkii wasaaga baxo aniguna waan dhalalo sanaaba miisii gaankan xinaa ma ku cararay bal waxaan sideed banaa xaafadii wajana bil midaad ka garataa bal carar aan dhalalo sanaarta la cabar ma soo eriyay ragiyo waxaan arnay luuq saawsi galayo inoo soo xaqii loo istaagay dhagaxaan bay qaateeno dib anagii bay reebeen la dagaalamaan mid baa igu soo carartay warigo dhagaxaas kaga fujiyay askarigii aan agtaynay askarigii ugu carray xabadii ka qaado dalcay dhagax baan qaado xagaasan ka hortay laabtan ka hortay askarigu markuu xabada kor buurida askarigu xabadii ku soo diray wala xabada ka qaado taanagii har toolada lagu dhufto markaas askar dhagax baan qaado askarigu kaga fujiyay askarigii aduu xabada raadiray markiiba yara carareen way carareen chatiyay galeen chatiyay saaw galeen anaguna ka daba carray chatiyay daba carray taariikh meeleen iska daba carro walaaliyo tifiyas soo taas kala soo iga soo daba carray arkay chatiyay ku boonay sidii baan ku wariyay chatiyay carrasay askartiina chatiyay carras xabad kala kurftay بتشات قالوا عليك بتشات أصيب بلا تارك هذا حملهم ممكن بتشات عرتين بتشات كلا صار بتشات عرس عسكري حبت كل كردي حاجة كنت عضي الله أعلم الله ما قرن مرة أنا مقعد عبد الرحيم عسكرت بالمار كيما أنا عسكرت الدفاع أنا وكل يوم
askarta anaga difaacayni intan ninkaan isku jireen waqti wuxuu doonayay qoriga inuu ka qaato doonayay ninka askariga markuu intan soo jiray xabad waa askari ku ruuriday xabadii koowaad markuu riday raggan waxaan islaan way noqonayaan garanayso qofka markuu rasaas cabsado ilaa markuu rasaas arko uu cabsanay waqti raggan rag cabsanay ma ahan wiilka askariga dib uu soo noqday laba askari dib uu soo noqdeen way ku soo dhaqaaqeen aniga walaalkii laba gees kala taagan ba dhagaxaantii ragii ku shiiday dhagaxaantii markaan ku shiiday ay haddana soo socdeen wiilka askariga xabadii loo riday ninkan raggan uu soo socdeen dhagaxaantii markaan nagu soo reena dhagaxaanta nagu ku ridnay xabadii loo riday xabadii labaad markuu ridu saarkay inuu dhagax gacanta ka sameeyay dib uu noqdeen too midi bay wadeen ku leeyahay midi iyo dhagax bay wateen dhagaxana anaga nagu sii shitimeen mididana waxay ku waawinayeen askarta ay ku markaa anagu xoogaa way isku jirnay intaas kuwa ciidanku hayaan waa rag anaga nala dagaaltamay toos baan aad baan garanaa waa rag anaga nala dagaaltamay ya waxa kamid deeq mid la dhaw waxa kamid rooble mid la dhaw oo hada ciidanku ku waxa kamid mid kale farxaan la dhaw oo wiilka qarooda kuftay markii ugu horeysay oo liiqsanayba marka rag sakhraansan bay hayeen ba waqti xaadirkaas xaaladda ay ku jireen magacaygu waa Ahmed Maxamed Xibsi wiilka 6 saac baa layla soo hadlay dhakhtarka referaalka kaalay baa la yiri imaw referaalka waan tagay laba tooriyood buu saalan yahay ilaahay uu sahlay amin xunna uu ba socday waa 6dii bay ahayd gacanta mid baa kaga taala halkanna mid baa kaga taala halkan wuxuu yiri quraarad bay ahayd wiilashii makhraatiga ahaa ee iyaga garanayaan waxaan isku xaafadaan la wada yahay wiilashii garanayeen waa kuwan hadda aad wareysanayseen ee iga horreeyay marka dib uu dhacay laakiin xal iyo sharci un bay leedahay lama amnigu aad buu mahadsan kulay wiilashu kuwii goobjooga ahaa ee wiilasha sheegayay waa kuwan wiilasha ay yiraahdeen waa un iyaga iyagu wiilashii goobjooga ahaa makhraatiga ahaa qabtay iyo booliiskii way joogaan intuba waxaan mahad celinayaa laamaha amniga waxaan mahad celinayaa wiilashan kale iyaguna wiilku la weysimayay mahad marka hore ilaahay baa leh wiilkiguna wuu sahlan yahay dhibaatadu caloosha oo xidhnu daata ka daraan lahay wuu sahlan yahay laamaha amniga iyo boolisku way mahadsan yihiin geesta kale ciidanka booliska xaafadda 6 ee u soo gurmaday wiilka ayaa gacan ka hadal kala kulmay kooxdii wiilka dhaawaca u geystay mindiyaha iyo bangadaha ku hubaysnaa kuwaasi oo ciidanka dhaawacyo u geystay amniga sugayay iskuna dayay inay qoryaha ka qaataan waxaana arrimahaasi ka warbixinaya madaxa baadhista maamulka magaalada Jijga Gaashaanle Yuusuf Ibrahim oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen kooxdii dhibkan geysatay hadaan inaga warbixiyo dhacdadii xalay ka dhacday Jigjiga qabalaha 6 waxay ahayd wiil dhalinyaro ah oo dheelmanayo xaafadooda u dheelmanaya ayaa waxa soo weerartay budcad abaabulan oo ku hubaysan tooriyo iyo baangado iyo dhagaxyaan iyo wax lamid ah waxayna u geysteen dhaawacyo dhowr meelood ah oo tooriye kadib waxaa soo gurmaday oo shanqadh iyo dhawaaqi wiilka maqlay booliska xaafadda 6 si ay wiilka u badbaadiyaan kadib booliskii waxay iska caabin kala kulmeen kooxda abaabulay iyagoo ma garanaysa adeegsanaya qalabka ay wateen dhagaxyaanta iyo bangadii waxay wateen booliskiina dhaawacyo ay u geysteen booliskii kadib waxa ka yimid meeshii waxayna isku dayeen inay ka qaataan qoryihii booliskina way istifaaceen boolisku waxay laba xubnood way istifaaceen burcadana koox waxayna ugu yaraan 7 ay ahaayeen dhibano kulay sidoo sheegay 4 buu arkay bajaasgana koox baa ku jirtay ilaa 7 meelahaas ay dhanaayeen sidaan xogta ku hayno kadib askartii markii ay ma garanaysaa iska caabin kala kulmeen waxay askartii naftooda iyo qorigooda badbaadiyeen halkaana waxa ka yimid qasaaro 2 xubnood oo dhaawac fudud ay soo gaaray waxayna yaalaan isbitaalka iyo qayb kamida booliska naftiisa dhibka gaaray oo dhaawac gaaray isbitaalka yaalaan waxay kala booliska lagu guuleystay la qabtay 3 xubnood oo eedeysanyaalkii kamid ah ayagana way xiran yihiin falka geystay way xiran yihiin sharciga u xiran yihiin waxayna ku jiraan baaris total waan baarayna kiiska sidoo u dhacay ilaa Z insha Allah waxaan u dirayaa dhalinyarada ma garanaysaa yararka deegaanka in ay iska daayaan dhibaatada ay ku hayaan shacabkooda oo ay ka mid noqdaan kuwa wanaagsan ee dalkooda iyo dadkooda wax u baranaya ee gashiga la gelinayo inay ka mid noqdaan kana waan toomaan dhibaatada ay ku jiraan ay ku hayaan shacabkooda odayaalka waaweyn ee da'da dhalinyarada ma garanaysaa dumarka kufsiga laabtoobyada moobilada ay ka qaadeen 24 saac ay ku leeyihiin inay iska daayaan kana waan toomaan annaga waxa noo qorshaysan in maalin iyo habeenba
inay shacabku ay ku seexdaan nabadgeliyo ku ganacsadaan ku dhaqaaqaan ku seexdaan ku soo toosaan ayuu boolisku u taagan yahay waxaa naga go'an cid kasta oo dhibaataynaysa shacabka in ma garanaysaa gacan bir aan ku qabanno isla markaana aan sharciga marin